haweeney ayaa si kama ah ugu seexatay barkadda dabaasha. Markii ay soo toostay, qof walba oo agteeda joogay wuu maqnaa. Waxay meel walba ka raadsatay saaxiibadeed, balse hal qofna ma helin, xitaa dharkeedii waa la qaatay. Iyadoo wareersan, Lisa waxay dib ugu laabatay dhanka barkadda. Markaas ayuu nin madow xirnaa si lama filaan ah uga soo muuqday. Markii ay khatar dareentay, way jeesatay oo carartay, laakiin nin kale oo madow xirnaa ayaa horteeda ka soo baxay. Iyadoo aan wax kale samayn karin, Lisa waxay fuushay meel sare, derbiga ayay ka booday, wayna baxsatay. Iyadoo cagaha qaawan ayay waddada ku oroday, dadkana gargaar ka codsatay. Gaari xamuul ah ayaa marayay, laakiin darawalkii wuu argagaxay oo wuu diiday inuu caawiyo. Lisa markaas waxay sii gashay gudaha keynta. Si lama filaan ah xadhig ayay ku dhacday oo way kufsatay. Markaas ayaa koox carruur ah oo ulal wata ka soo yaaceen iyagoo isku dayaya inay qabtaan. Nasiib wanaag, hagiyii safarka iyo nin kale ayaa wakhtigii saxda ahaa soo gaaray. Hagiyii ayaa Lisa gaariga geliyey, waxayna u kaxeeyeen villa uu lahaa ninka. Ninkii wuxuu u sheegay Lisa inuu horay booliiska ugu wacay si ay u raadiyaan saaxiibteed maqan, wuxuuna hagaha ku yidhi inuu Lisa kor u geeyo si ay u nasato. Laakiin markii hagiyii baxay, Lisa daaqadda ayay ka eegtay, waxayna aragtay in raggii madow xirnaa ay heleen villa. Waxay rabtay inay uga digto ninka taajirka ah iyo hagaha, balse si lama filaan ah ayay u ogaatay inay wada shaqaynayaan. Lisa si degdeg ah ayay qolkeedii ugu oroday oo albaabka ayay isku soo xirtay, laakiin raggii madow xirnaa weli way qabteen. Riyadeedii xumayd hadda ayay dhab ahaan bilaabatay.